Channelka daawanayso waa Cali Nuur Official. Fadlan channelka dad ku cusub tahay subscribe saar, like-na taabo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Walaalihii Soomaaliyeed oo sharafta leh. Maanta waxaan idiin wadaa taariikhda Saddam Hussein qaybteedii koowaad. Magaciisa oo buuxa waa Saddam Hussein Cabdulmajiid Al-Tigriti. Waxa uu ku dhashay tuulo la yiraahdo Al-Cawja. Waxa ayna ku dhowdahay magaalada Tikrit, ayadoo lafeeda 200 oo kiiloomitir ka jirta dhanka waqooyi ee magaalada caasimadda Ciraaq u ah ee Baghdad. Waxa uuna dhashay sanadii 1937. Saddam Hussein waxa uu ka soo jeeday qoys beeraley ah oo aad u danyar. Aabihii waa uu geeriyooday, waxaana waqti aan sidaas ugu sii fogeyn raacday geeridii walaalkii ka weynaa, waxa uuna u geeriyooday xanuunka kansarka. Nolosha Saddam Hussein waxaa kafaala qaaday adeerkii oo lagu magacaabo Khayrullah Fitex. Waxa uuna adeerkii dhexda u xirtay sidii uu u korin lahaa wiilka uu adeerka u yahay. Hooyadii waxa ay guursatay nin ay isku qaraabo ahaayeen Saddam Hussein, kaasoo lagu magacaabo Ibrahim Hussein. Waxa uuna odaygaas ahaa nin danyar, waxa uuna ilaaliye ka ahaa iskuulada magaalada Tikrit. Waxa ay hooyadii odayga kadib u dhashay 3 carruur ah oo Saddam la walaal noqday dhanka hooyada. Waxa uu nolosha la soo kacay kufaba, waxa uu madaxa u ritay maareynta nolosha qoyskooda. Waxa uu haddana u bacbacdhigay nolosha waayo walbo adag. Magaalooyinka Mosul iyo Baghdad ayuu galay, waana halkii uu ku qaatay noloshiisa hardanka ahayd. Qoraa Carbeed oo buu ka diyaariyay hogaamiye Saddam Hussein ayaa waxa uu sheegay markii uu ka hadlayay carruurnimadiisa in Saddam Hussein uunan arag weligii qof la mid ah dhanka adayga, isaga oo dhameystay aqoontiisa walina maareeyay noloshiisa xanuunka badnayd. Saddam Hussein tacliintiisa waxa uu kulliyadda xuquuqda ka bartay magaalada Qaahira ee Masar. Waxa uuna dhameystay cilmigiisa jaamacadda Baghdad ee dalka Ciraaq. Waxa uuna sanado badan helay darajada aqoonta ee Mastarta. Waxa uuna bartay cilmiga ciidanka sanadka markuu ahaa 1979. waxa uu ka mid ahaa 50kii sano ee la soo dhaafay shakhsiyaadka saameynta ku leh bulshooyinka Carabta, gaar ahaan wadankiisa Ciraaq. Saddam Hussein waxa uu ahaa mid qabay fikirkii Jamaal Cabdi Naasir, kaasi oo ahaa in Carabta cudud iyo ciidanba loo mideeyo si ay u muuqdaan taag ahaan oo aan la loodin karin. Saddam waxa uu guursaday gabadh ay ilmo adeer ahaayeen, laguna magacaabo Saajida Khayrullah. Waxa ayna u kala dhashay 2 wiil oo lagu kala magacaabo Qusay iyo Uday, oo ay dileen ciidanka Mareykanka sanadka markuu ahaa 2003. Sidoo kale gabadhaasi waxa ay u dhashay 3 hablood oo lagu kala magacaabo Rana, Raaqa iyo Xaala. Dhanka kale Saddam Hussein waxa uu dhanka siyaasadda ku soo galay dhinaca adeerkii Khayrullah Fitex oo ahaa sargaalkii ugu sarreeyay ciidanka qalabka sida ee Ciraaq. Waxa uu Saddam Hussein ku biiray xisbigii Bayt Baath oo ahaa waqtigaasi mucaaradkii ugu cuslaa ee Ciraaq. 1959kii Saddam iyo qaar ka mid ah ciidankiisa ayaa isku dayeen in ay ridaan dowladdii uu madaxda ka ahaa Cabdikariin Qaasim. Fadlan la soco qaybta labaad.